بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada walaalaha qaaliga ah Ramadaan mubaarak meel kastoo aan joogno waxaan idinku hambalyeeynaa bilashada bisha Ramadaan. Ilaahay waxaan ka rajeyneynaa inuu acmaasheena wanaagsan naga aqbalo oo haleeshiisiyo acmaal wanaagsan inaan qabsano oon ka faa'iideysano bishan Ramadaan. insha Allah bishan aan ka faa'iideysano waa bilsha diinta ay xiran yihiin acmaasheena wanaagsan oo dhan aan sii laabna insha Allah. Ilaahay noo dambi dhaafo, إلهي خيرك يفضل بشاء الله نصيه ليلة القدر إلهي هذا الشيء بإذن الرحمن مرور بنت بدعيسته إن إلهي هذا الشيء ليلة القدر. سورة هذا ولا لها قالقة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أنا حسوس إنك صليت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كنا ما أنت وحى وقصاب سنان دونا سورة البقرة يفائدة ذي قصص كالغاركي. سورة البقرة وحى تريا سورة ده وين وقونا دير سورة ده قرآن كوحين كوانت هاي لو بقول سديت إن إيه لح آيات وحين كوحاب بحد سورة البقرة فضل هذا إيه بركة ذي وين يسامنت إيه كويا لتنولش حاجة يعني بوستيف كأه qofka akhriyo oo joogteeyo suuratul baqara waxa uu ka helaa maalin kasta yani qofka akhriyo joogteeyo oo akhriyo maalin walba inta waxa uu ka helayaa natiijo sax oo positive ah hadii camal la'aan ahayd hadii xanuun jireen hadii yani awlaad la'aan ahayd dhinac walba oo akhrisato insha Allah hadaad joogteyso oo yaqiin wala imaato bi'in rahmaan waxaad noqonaysaa qof naajax oo guuleystay ala rasuulullah sallallahu alayhi wasallam. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. صلى الله عليه وسلم وحقون ليه هاي سورة البقرة هذا الشيء أخرنت هذا وبركة كتجستيدنا وحسرة ندامه خسارة سحرة ضعفنا مأوذان إن يباتيان قفك أخرست سورة البقرة. سورة البقرة فائدة وحاكم ترى سورة البقرة إن علاج التهي أعماشا وحيابها حنحن أي سحرة سميان إن أي حسدك يعني أي برسو يحقدك وحاجة سورة البقرة فايدوين كده إيه لقارك تهي وحاجة مد إيه قفك استمرار يجوكتين وسمي إنه ارتاقد إيمالك إله وبركينايو وحاجة لأنتو سورة البقرة لقار تهي صحة يعافماد إن إلهي يعني حنونة إلهي دتكوغد القاهدو وحاجة لأنتو أي هاي سورة البقرة inay dhufays iyo xisni u tahay guryaha shayaadiinta yani ay ilaalo oga tahay guriga laga akhriyo ama laga daaro shayaadiinta ma ku soo degdegaan mana soo galaan wayna ka cararaan meelaha laga daaro suuratul baqara shayaadiintu way ka cararaan iyo guryaha laga akhriyana ma soo galaan. waxa kale ay la gaartahay oo fadaaisha ay la gaar ka tahay suuratul baqara kamid labada aayadood ee ugu dambeeya suuratul baqara in ay leeyihiin fadaa'il iyo barakooyin fara badan ayna ka ilaaliso qofka akhristo habeenkaas oo dhan shar ay ka ilaalinaysaa. waxa kale oo suuratul baqara fadaaisha ay la gaarta tahay ay tahay yani qofka akhrista maalintiisa wuxuu noqonayaa qof xifdisan oo xisniga ilaahay insiga iyo jinniga shartooda laga xijaabayo. suuratul baqara waxay la gaar tahay in ay yani qofka akhristo oo daa'imo oo xifdiyo ay u shafaac qaadayso maalinta qiyaamo ayna ka ilaalinayso naarta iyo kuleelkeeda. waxa kale inta suuratul baqara la gaar tahay aayada 255 oo ah aayatul kursiga ah inay tahay aayada ugu weyn quraanka. aayadaasi tahay in ay yani qofka akhristo ay ilaalinayso qofka markuu akhristo habeenkii waxay ilaalinaysaa ilaa waagiisa uu ka bariyo waaga markuu bariyana uu akhristo ilaa habeenkii laga gaarayo shayaadiinta iyo laga ilaalinayo diinul insi wal jinni shartooda shar walba ilaahay uu ka ilaalinayo. soo dhawaada walaalaha qaaliga insha Allah waxaan u gudagaleynaa qisaska laga arkay suuratul baqara akhrinteeda. qisadeen ugu horeyso ee laga arkay suuratul baqara waxa ka sheekeynayo wiilkan waxa uu leeyahay waxaan guursaday sanadkii markuu ahaa 2012 ilaahayna ma nagu arsaaqin aniga zawjadeeda wax awlaada muddo 3 sano ah. guurkeena kadib waxa batay mashaakilkeeni markii dambana waxa dhacay furiin oo waan kala tagnay aniga zawjadeedii. waxa uu yiri muddo sanad iyo bar kadib ayaan waxa maqlay oo dhahay faa'iidooyin fara badan idaacad ayaan shida gaari ayaan waday shaqadayda ana u sii socdo idaacad ayaan shiday waxa ka daarnay sheekhaasna waxa uu ka sheekeynayay oo dhahay fadliga uu quraanka leeyahay waliba suuratul baqara ayuu si aad iyo aad
yacni ugu taagtaagsaday oo uga sheekeeyey. Waxa uu yiri markaas kadib waxaan go'aansaday inaan joogteeyo oon bilaabo suuratul baqara. Markii aan waday ayuu dhahay muddo 2 isbuuc ah. Waxa uu yiri aniga zawjadeedii waa isku soo noqonay oo yacni reerkeena dib ayaan u soo ceshanay. Waxa uu yiri guurkeeni markii iyo soo noqoshadeena nikaaxeeni labaad markuu u dhacay waxaa ka soo wareegatay ayuu dhahay wuxuu dhacay nikaaxeeni labaad 2017 bishii tobnaad 24teedii. Waxa uu yiri marka ay ku beegneed 2017 bishii 11aad 25teedii waxaa xanuunsatay zawjadeedii waxayna dareentay xanuun ay hore u dareemi jirin. Waxaan geeyay ayuu dhahay goob caafimaad. Waxa uu yiri markii la baarayna waxaa laga soo sheegay inay leedahay uur. Waxa uu yiri Ilaahay subxaanahu wa tacaala wax kasta wuu awoodaa. Waxa ay ku noqotay ayuu dhahay sadmo iyo arrin lama filaan ah sababtoo ah wuxuu yiri zawjadeedii muddo yar oo adiga bil oo kaleente ah ayaa wuxuu dhahay waxay ugu yeeratay uur aniga oo 3 sano iyo khilaaf iyo dib iyo fara badan inta soo marna kala tagnay. Waxa uu yiri khilaafkeena waxa ugu badnaayna waxay ahayd oo dhahay awlaad la'aantaas ayaan isku dadaali jirnay alxamdulillah. Waxa uu yiri mulaaxado yar ayaan sheegayaa Ilaahay horta wax kasta asaga awoodo balse waxaan idin raacinayaa ayuu dhahay yacni suuratul baqara marka akhrineysaan tajrubo iyo tijaabo oo akhrinina si yaqiin oo akhriyo. Wuxuu dhahay waxa uu yiri aniga sheekha markaan dhageystay aad iyo aad iyo yaqiin fara badan Ilaahay qalbigayga galiyay ayuu dhahay si yaqiin ayaan u akhrinayay ayuu dhahay suuratul baqara alxamdulillah. waxa kaleento oon idin raacinayaa ayuu dhahay xilliga aan akhrin jiray waxay tahay markii aan qiyaamul leylka habeenkii sameeyo kadib inta salaada subax aan la gaarin ayaan akhrin jiray ayuu dhahay markaan tukadana waxaan raacin jiray 3000 oo mar oo istighfaar ah. Alxamdulillah aniga qisadeydii waa taa Ilaahay reerkayga burburay oo dib iigu soo celiyay oo Ilaahay igu siiyay awlaadii aan muddada dhowrka sano ah la'ayn Ilaahay wuxuu nagu siiyay muddo bil gudaheeda. Qisadeena labaad waxa ka sheekeynayso waxay leedahay gabadhani suuratul baqara waa raxmad Ilaahay qofka uu Ilaahay la doono inuu akhriyana ha ogaado Ilaahay wuxuu kula doonay in nimco fara weyn iyo arrimo waaweyn ayuu Ilaahay ka damacsan yahay hadduu Ilaahay kuu fududeeyo inaad akhrisato suuratul baqara. waxay tiri alxamdulillah raatib ayaan qaadan jiray iyo mushaar aad iyo aad u yar shaqada aan qabanayna waxay ahayd ay dhahday shaqo iska daciif oo aan ii qalmin alxamdulillah waxaan ku helay ay dhahday shaqo wanaagsan iyo mushaar wanaagsan meel waliba laga ixtiraamayo irsaaqada waxay dhahday maadi iyo diini iyo nafsi iyo waxay dhahday wax kasta bay dhinac walbo Ilaahay wayga dhisay mafaaji'ooyin fara badan ayaan kala kulmay ay dhahday suuratul baqara marka akhrinteeda joogteeyay waxaan ku helay ay dhahday oo isoo doontay rajul aad iyo aad muxtarim u ah oo aanan yacni aniga malmalaysanaynin ama malaynaynin inuu isoo doonanayo xilligan iyo qaabkan dabeecadiisa iyo khuluqiisa iyo akhlaaqdiisa waxay tahay iyo diintiisa waxay tiri nin aad iyo aad u sareeya ayuu ahaa waxa ay tiri cilmiga waxa uu haayay dhahday nin aad iyo aad u cilmi badan tiri waxaan ahaa gabar la soo furay oo yacni 2 awlaad ana wadato aniga awlaadeyda uuna wada qaatay ay dhahday madaxa meel ka sareysa oo yacni qof la saaran kara malaha meesha ugu sareysa iyo qiimada ugu sareysa ayuuna gaarsiiyay ay dhahday Ilaah baan ku dhaartay irsaaqad iyo barakaad aan la soo koobi karin ayaan ku helay fadliga Ilaah iyo tawfiiqdiisa ay ku sugnaatay thumma akhrinta suuratul baqara ayaa nimcadaas farada badan ku galay badan kalena waxa ka sheekeynaysa gabadhan alxamdulillah rabbil caalamiin ay dhahday waxaan laazimayay suuratul baqara akhrinteeda muddo 2 bilood iyo bar ah Ilaahay fadligiisa iyo fadliga suuradan weyn Ilaahay wuxuu iiga caafiyay ay dhahday sixirkaas oo nolosheyda dhan dhulka la galay alxamdulillah nolosheyda hal mar ay isbedeshay ay dhahday 180 degree ay hal mar dhaqaaqday waxaan ku helay ay dhahday fudeyd wax kasta oo Ilaahay iiga siray cajiib ay dhahday barakooyinka shay walba wuxuu noqday ay dhahday si qurux badan waxay dhahday alxamdulillah aniga bas xitaa ma aha yacni walaalay xitaa way ku caafimaadeen waxa ay ku tufan jireen suuratul baqara biyo alxamdulillah wayna caafimaadeen waxay tiri aniga kaloo akhrinayay ay dhahday salliga nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo oo waliba ibraahimiyada iyo taajudiga alxamdulillah waxay dhahday waxaan noqday nolol barwaaqo oo saciid ah alxamdulillah daacadka Ilaahay ii fududeeyay Ilaahay hanuunkiisa ayuu igu duu xageeda alxamdulillah hanuunka Ilaahay ayaan wax la heli karab ahayn ay dhahday waxay tiri alxamdulillah aniga waxay tiri sixirkaas ayaan uga caafimaaday walaalahaygana ku caafimaadeen barako irsaaqad caafimaad raaxo deganaan
wanaag daacadii ilaahay ii fududeeyey ayaan ku helay ayay dhahday suuratul baqara taaju dikri iyo saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam waliba ibraahimiyada qaaliga insha Allah qisaskeena intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa jasaakumullahu khayran halka hadana la soo gaartay بإذن الرحمن waxaan rajeynayaa video in like noo saarto si meel wacan oo wanaagsan u gaaro walaalaha dhibaataysan ama culeysyada saaran yahay insha Allah khayrka iyo dikriga ilaahay iyo qisaska wanaagsan u share gareeya la wadaag waxaa laga yaabaa qof qurbaysnaa oo culeys haystay maanta intuu arko inay faraj iyo fatax u noqoto بإذن الرحمن wayna dhacday wayna dhici doontaa بإذن الرحمن adiga share gareynta iyo qayb qaadashada insha Allah ku dadaal بإذن الرحمن soo dhawaada channelka subscribe ka noo saara walaalaha qaaliga qof walba inta muraadkiisa macsilayna Allah siiyo aamiinteena iyo aamiinta malaa'igta Allah kulmiyo gacanteena tii sareysa Allah ka yeelo bogtadeena iyo baahideena bini'aadanka ilaahay mutusiyo استودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه إلهي waxaan baryaynaa inuu khayrka iyo wanaaga iyo yaqiinta nagu sugo اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا الاتباع اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله.